dowladda Kenya waxaa leenahay hambaliyo labadan dal Kenya iyo Somaliland taariikh dheer bay wada leeyihiin xitaa waxay jirtay mar inaynu lacagta wada qaadan jirnay East African money. wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa raaligelin ka bixisay in calanka Somaliland lagu arkay munaasabadu madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka casuumay diblomaasiyiinta caalamiga ah ee ku sugan magaalada caasimadda Nairobi. warka ka soo baxay dowladda Kenya ayaa lagu yiri wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waxay qiraysaa warqadda ka soo baxday safaaradda Soomaaliya ku taariikhsneed 14 Juun 2022 inay dareenkeena ku soo jeedisay calanka Somaliland oo kamid ahaa calamadii la dhacdo sanadeedkii diblomaasiyadeed ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya. wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waxay ka xuntahay sida aan ku talagalka iyo munaasibka ahayn ee calanka Somaliland uga soo dhex muuqday dhacda sanadeedka diblomaasiyadda. wasaaraddu waxay kaloo rajeynaysaa inay dib u xaqiijiso aqoonsiga qarannimada hal dawlad oo federaal ah oo Soomaaliyeed iyo sidoo kale jiritaanka qaranka federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya. dhinaca kale war-saxaafadeed habeenkii xalay ahaa ay soo saartay Somaliland ayaa waxay ku sheegtay inay ka carootay ficiladii uu sameeyay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan kaas oo isaga baxay shir madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ugu yeeray kadib markii uu kulankaasi uu ku arkay mas'uuliyiin matalaya xukuumadda Somaliland iyo calanka Somaliland. Somaliland ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay cadeyn u tahay cadownimada iyo nacaybka soo jireenka ah ee Soomaaliya u qabto Somaliland iyo dadkeeda. war-saxaafadeedka ayay Somaliland waxay ku sheegtay inay tahay dal madax bannaan oo dimuqraadi ah isla markaana doonaya in si nabad ah uu kula noolaado wadamada deriska la ah oo ay ku jirto Soomaaliya. dhinaca kale diyaaradaha dagaalka ee dowladda Kenya ayaa habeenkii xalay ahaa waxay duqeymo ay ka geysteen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Gedo. deegaanada duqeymaha ay ka fuliyeen diyaaradaha Kenya ayaa waxaa kamid ahaa sida ay soo wariyeen dadka deegaanka lagu magacaabo Ceel Cadde, Buusaar iyo waliba deegaano kale oo ka tirsan gobolka Gedo kuwa oo dadka deegaanku ay sheegeen in diyaaradaha Kenya habeenkii xalay ahaa ay duqeymo kala duwan ay ka fuliyeen inkastoo aan la xaqiijin bartilmaameedka dhabta ah ee duqeymaha diyaaradaha Kenya ay fuliyeen. haddaba daawada sideed u aragtaa duqeymaha diyaaradaha dagaalka Kenya ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka Gedo iyo go'aanka ka soo baxay xukuumadda Somaliland?